reeraha Soomaalida ee miyiga maalintoodu waxay la bilaabantaa marka ugu horeysa iftiinka qorraxda uu soo baxo markaas hawshooduna bilaabantaa diiga cidiisaad ku toosaysaa iyo shimbiraha cidooda barnaamijyadan waxaa marti noogu noqon doona ama aan idhaahde xidig ka noqon doona Muna Jaamac oo iyadu ah gabadh ka shaqaysa xayeysiinta dharka oo caalamiya waxaa Munana la bari doonaa oo gabdhuhu ay barayaan sida ariga loo raaco iyo sida loo liso iska daaqaya markuu soo duulun baad ka reebiso dacwada marka dacwada ku soo carto wax yar oo ariga ka yar marka ku soo carto baad ka reebiso dacwada marka dacwada arto marka la hooydayo heeday dayo faaraxay heeday faafaato soo heeday laangalo ku xasilaan baa la iskaga maarrugo nalaago dabahuwan nalaangalola dabahuwan imika marka yareen iskuulku waxna bari jireen oh McDonald's had a farm iyo hanti qaboy qorya laba qaalin kugu buufta jiree kugu qoraanjay imika haddii dad baran fadhiyaan ma eegasid toos una eegasa dhulkana ma eegasid lugahana waa ka talaabsanaysa sida bisadoo kale ilaan waxaa la yidhi catwalk okay bisadaa lagu magac daray ما شاء الله حالي مركان سي سيحانينينا شاكيرو aadu fani aba dhacday cawayar oo reerka ugu yar reer Mustafa ayaa intay u tagtay Muna iyo walaasheed Khadiija ayaa cawo imika shanjiri waxay ku tiri maalin dhaweyd waxay la tagay gaaray wax dameerka leego weyn oo deegaanka iyagan jooga dabadeedna dirqi iyo to Allah ayuun baan ku baxsaday Muna iyo Khadiijo dhagahanna bayana soo galay Cabdillahina waxa uu ku dhashay magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda Cabdillahi waxa la barayaa sida geela loo raaco sida loo liso للي يدير ساقل للي دودب ساقل للي دودب ساقل وه بعض وران ساقير وه بالغو حصليه وه marka taa inta uu ku xasliyo wahdaasad kula wareegaysa ragii hore baahidiisa yarayd marka ninkaasi dharkiisuna laba gooc cad buu ahaa indhihiisuna way cadcadaayeen ilkihiisuna way cadcadaayeen aanuhu dhamaana way cadcadaayeen allahumma salli ala maxamed cadaygu ku cadaynaya rag galolba uu cadaa